xukuumadda Somaliland ayaa baaq nabadeed u dirtay laba beelood oo ku dagaalamay deegaanka Dharkayn oo ka tirsan gobolka Sool. Faahfaahinta warkani waxa inoo haya wariyahayaga Maxamed Faarax Oomaade. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani oo warfidiyeenada kula hadlay xarunta wasaaradda ayaa waxa uu ugu baaqay labada beelood ee ay dirirtu ku dhexmartay magaalada Dharkayn ee ku taala koonfurta magaalada Laascaanood iyo sidoo kale magaalada Dhumay inay joojiyaan dirirtaasi u dhaxaysa isla markaasina ay nabad ku soo dabaalaan wada hadal ay ku dhameystaan khilaafaadkani soo kala dhexgalay labadan beelood ee walaalaha ah. wasiir Cadaani oo arintaasi ka hadlaya waxa hadaladiisii kamid ahaa dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay qaaday talaabooyin lagama maarmaan ka ah ee ay kaga hawlgeli lahayd madashaas. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo markii dhiiladaas soo gaadhay waxa uu amray in ciidanka qaranku si degdeg ah u kala dhexgalaan labada dhinac si loo joojiyo khasaare kale oo sii kordha. ilaa haddana ciidanka qaranku waxay ku sugan yihiin goobihii waxyeeladu ka dhaceen. haddii ay Dharkayn geeyo tahay oo ay shalay subax ku waabristeen iyo hadday saaka tahay Dhumay magaalada la yiraahdo oo ay saaka ku waabristeen. sidoo kale xukuumaddu waxay talaabooyin lagu adkeynayo ammaanka dadweynaha ka qaaday gudaha magaalada Laascaanood si looga hortago in falal dhibaatada la xiriira ka dhacaan maadaama labada arday wada degan yihiin magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaanood. xukuumadda Somaliland waxay dhiirigelisay ergooyin nabadoon oo madax dhaqameed ah oo ka kala tegay gobolada Jamhuuriyadda Somaliland oo dhan iyo caasimadda Hargeysa. way hogaaminayaan wasiiro ilaa tiraba 4 ay yihiin madax dhaqameedyo leh salaadiin boqorro ugaasyo oo tabantaabinaya garaadada ballaaran ee ku sugan gobolka Sool. xubno ka kooban labada gole ee guurtida iyo golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland kuwaas oo hadda iyaguna ku sugan aagagii dhibaatadu ka dhacday gaar ahaan magaalada Laascaanood qaarna ku sii jeedaan. intaa kadib xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland oo ah hay'adda fulineed ee dalkan mas'uulna ka ah ammaanka qaranka waxay ugu baaqaysaa dadkii halkaa ku dagaalamay inay ka fekeraan dhiigga qubanaya ee labada arday ee walaalaha ah isla markaana joojiyaan xabad oo si degdeg ah loo helo xabad joojin aan shuruud ku xidhnayn una nuglaadaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee nabadda ka shaqeynaya iyo ergooyinka nabadeed ee madax dhaqameedku horkacayo ee u gurmaday sidii hawshan u soo afjari lahaayeen. haba yaraatee xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland wax kala hadhi mayso sidii dhibaatada loo joojin lahaa isafgaradna looga dhameyn lahaa wixii dhacay iyo wixii sababay labadaba. Maxamed Faarax Oomaade, Somali Channel, Hargeysa.